daawadahayga weligaa ma maqashay qisada qofkii tagay adduunka geeska gees waxaase ka taqaanaa qisada boqorkii xikmadda iyo cadaaladda badnaa wuxuu derbi ku xiray yuuj iyo ma'juuj iyo qoomkooda haddaba waa boqorkii awoodda badnaa ee dulqarnayn waqti hore waxaa jiray boqor cadaalad badan oo la odhan jiray dulqarnayn allah ayaa siiyey awood weyn xikmad iyo boqortooyo weyn wuxuuna awood u yeeshay inuu safaro dhaadheer uu ku maro dhulka safarkiisa qorax u dhac boqor dulqarnayn wuxuu socdaalay ilaa uu ka yimid meeshay qoraxda u dhacdo waxa uu arkay inay u muuqato sidii inay ku dhacayso meel biyo ah oo madow oo xumbo leh waxaa deganaa dad waxaana uu ilaahay weydiiyey dulqarnaynow ma ciqaabi doontaa dadkaas mise waad wanaajin doontaa wuxuu yidhi ciddii waxyeelo samaysa waan ciqaabi doonaa laakiin ciddii xaqa raacdaa waan u naxariisan doonaa safarkiisa qorax ka soo bax dulqarnayn wuxuu sii watay safarkiisa ilaa uu ka yimid meesha ay qoraxda ka soo baxdo wuxuu kula kulmay dadkaasi waxay ku noolaayeen nolol fudud wuxuuna ka tegay ayaga isagoo aan wax dhibin safarkiisii dadka ku nool labada buurood wuxuu sii watay socdaalkiisa ilaa uu ka yimid dad ku dhex nool laba buurood oo waaweyn dadkaasi waxay ka cawdeen juuj iyo ma'juuj oo ahaa dad khatar ah oo barakicin jiray dadka burburin jiray xoolahooda waxay weyddiisteen dulqarnayn inuu dhiso derbi xooggan oo ka ilaaliya dhisidda derbiga awoodda badan dulqarnayn wuxuu yidhi isiya xooggiinna lacag idinkama doonaayo waxay wada shaqeeyeen dulqarnayn wuxuu keenay bir wuxuu dhigay derbiga kadibna wuxuu ku shubay naxaas kulul si uu u adkaado derbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ma awoodin inay ka boodaan oo ma awoodin inay dalooliyaan dulqaadka iyo shukrigii dulqarnayn markuu dhammeeyey derbiga wuxuu yidhi tani waa naxariista eebbahayga isiiyey laakiin maalinta uu doono eebbahayga derbigan wuu burburi doonaa waxyaabaha aan ka faa'iidnay qisadan waxaa ka mid ah 1 cadaaladda iyo wanaagga dadka in la wada shaqeeyo oo la caawiyo dadka kale in allah looga mahadiyo naxariistiisa iyo nimcooyinkiisa sheekadani waxay ku jirtaa suuratul-kahfi aayadda 83 ilaa aayadda 98 muuqaalkeennii maanta halkan ayaan ku soo gabagabaynayaa waxaana idin leeyahay nabadgelyo saaxiibayaal